السلام عليكم أخياري فيلمكن waxa uu ku bilaabmay Frank oo qalkiisa iska fadhiya mise si kadisa haqalka gaadhay ayaa daf soo dhaxay gidaarkuna ka soo baxay Frankna qofka uu yahay ayaa uu eegaya mise waaba saaxiibkii Malcolm waxaana lagu dhufto xabad saaxiibkii markaynu dib u yara laabano waxaynu arkaynaa nin uu imi Frank wuxuuna rabaa inuu mission u qabto Frankna way og yihiin inuu ku guuleysanay missionka ama shaqada tigaas Frank waa uu diiday wuxuuna ku dhaxaya fasax ayaan ku jiraa imika shaqo ma qabanayo waxaad u diri kartaan saaxiibkii Malcolm isaga ba idin qaban kara shaqada waxa uu sheegay booskooda inaan cidi haba yaraatay u diidin waxa uu rabo cidii isku dayday inay diidana halka ay taagan yihiin ayaa lagu dilayaa oo ka oranaya 10 second oo kaliya ayaan ku qabanaya waa inaad yeeshaa ama waan ku dilaynaa labada mid dooro Frank waxa uu ka oranaya adiga 5 second oo kaliya ku qabanaya iga qaad gacantada hadii kale meel aad marto lagu weeyay waxa uu isku dayay inuu la dagaalamo Frankna waa uu iska qabanaya sida darteed ciidankii kala soo yaacaya Frankna dhamaantood waa uu garaacay waliba mid ayaa uu garaacay waxaan baraya dagaalka saxda ah markina ciidankii oo sida u dhamaayeen mid miiska loola dhacay waliba hal nin uu la dhacay kadib ayro dhalatay ayaa uu iska tagay haddana waxaynu ku soo laabanaynaa waqti xaadirkan waxaana la geenayaa saaxiibkii Malcolm dhakhtarka waxaynu arkaynaa booska gangiiska waxaana la dhac Jason wuxuuna la hadlayaa wasiirka arrimaha gudaha wuxuuna ugu hanjabayaa inuu shirkadu leeyahay u fasaxo shaqadeedii daraagiska turkuna waa uu ka diiday mana dhacaysa ayaa uu ka oranaya wuxuuna ku oranaya intaanad hadal ka hor eeg sawiradan ku soo diray wasiir waa intaas oo bedeshaa ra'yigaaga tigaas Frank gaadhiga waxa uu ka dhaxeelay gabadh waxa uu isku dayay inuu ka soo saaro mise way diidaysa waxaana ku dhaxaysa bamba ayaa igu xiran hadaan ka fogaado gaadhigana waan qarxaya isku dayay inuu gaadho saaxiibkii intaan la qaadin way isagana waa ay ku xirantay mise ma ka gaadhayo waa uu dhimanayo waxa uu ku soo laabanaya gabadha inta aanu la hadal qof ayaa wax ku dhufanaya waana suuxaya oo soo toosan mise qol ayuu jooga gacantana bambadii ayaa lagaga xiray kadib waxa uu helaya dharkiisii waanu xiranaya waxa uu imanaya booskii gangiiska iyo raggiisa wuxuuna ka oranaya Malcolm ayaa missionka waday xaqiisina waa inaad ka sii wadaa tigaas nin u shaqeeya ayaa ka hoos hadlaya mise waa uu dilaya marka uu hadlo Frankna waxa uu ka oranaya 3 second oo kaliya haysata maad yeelaysaa mise waad dhiman adiguna Frank waa uu yeelaya laakiin shardi ayaan wataa ayaa uu ka oranaya waxaan rabaa inaan gaadhigayga ku qabto shaqada missionkan oo dhan boosku waa uu ogaa inuu ka dalbanayo Frank gaadhiga waanu u sii diyaariyay balse waxyaabaha qaar ayaa uu ka bedelay waanu u keenay una ku oranaya waxaan ka soo saaray gaadhiga wax kasto kuugu jiray iyo hub kasta waqtigaas Frank marka uu eego mise waxa dhex fadhida gaadhiga gabadhii una ku oranaya booska gangiiska weligii kiligii unba missionka qabsada waa maxay gabadhani boosku waxa uu ka oranaya amarkaaga jira imika ayaan u dhamanay gabadha mise Frank waxa uu ka oranaya iska daawaa caadi waxba hadilin way la qaban kartaa hawsha bosku waxa uu ka oranaya iska jir imika bambada gacanta idinku xidhan haddaad ka fogaataan gaadhiga 75 mitir wad qarxaysan soo ima maqlaysaan imika mobilkanna qaata anigoo kaliya idinkala soo hadlay kadib Frank waxa uu bilaabay missionka mana aqaano missionkan waxa uu yahayba waayo loomaba sheeginba intii ay wadada ku jireen ayaa uu gabadha weydiinaya missionka mise lamaba hadlayso waxba uma sheegayso waxa uu la hadlayaa booskii gangiiska waxaanu weydiinaya xagga uu tagay waxaanu isna ku oranaya waxa tagtaa magaalada Budapest ay wadada ku jireen ayaa uu gaadhiga istaajinaya wuxuuna ku qancinaya Valentina inay wada hadlaan wuxuuna ku oranaya waxaan ku jirnaa xaalad adag waxna iima sheegaysid ogowna marka aynu missionka ku guuleysana gangiisku labadeenaba waa ayna dilayaan waxa sax ah inaynu iska caawino wax walba aadna ii sheegtay si aan isku kaalmaysano marka way la hadlaysaa oo magaceeda ayay u sheegaysaa Frank saaxiibkii waa taliye wuxuuna baadhaya booska gangiiska dilalka uu sameeyay waayo dad badan ayaa uu dilay raggii u shaqeynay gangiiskuna waxay u tageen wasiirka si ay uga soo saxiixaan inay shirkadoodu sharci tahay una sii shaqayso waqti badan uu sheegayaan inay dooni u soo socoto oo ay sida daraagis badan waxaana u baahan ay ka oranayaan inaad noo saxiixdo cid dambanaanay hor istaagin shaqada ayada tiirku waa uu ka yeelaya laakiin waxa uu ka oranaya waqtiisii aan waraaqadaha ku eego waayo waa xasaasi waxaad ka hadlaysaan wayna yeelayaan meeshana waa isaga tagayaan waxaynu arkaynaa inuu wasiirku rag u dirsaday mission oo 24 saac kadib uu soo dhameynayeen missionka dhanka kale Frank wadadii waa uu isaga leexanaya wada kalena waa uu maraya booskii gangiiska waa uu ogaanaya wuxuuna u diray rag wuxuuna ka oranaya hadirina laakiin garaaca uu ninka Frank waxa uu tagay inay saaxiibo yihiin oo bambooyinka furfura ku oranaya waxaan isku dayi doonaa inaan ka furo bambada laakiin si ogow bambadan wax lagu maamulaa way fi xilligii la doonaa waa ay qarxaysaa gaadhigan haddaan networkiisa damina bambadu waa istaagaysaa waqtigaas meesha waxa imanaya raggii loo soo diray waana rag badan waxayna ku oranayaan Frank haysa gaadhigaaga wadada saxda ahna mar haddii kale waa lagu garaacaya waxa uu ka oranaya welcome hadda dagaalkaba waan ka helaa soo baxa waanu garaacaya dhammaantood waliba mid lafahana waa uu ka jibinaya waxa uu la dagaalamaya sidii inuu yahay nin ninja
kale Valentino waxay la dhacsantay geesinimada Frank isaguna mid ayaa uu garaacay ilaa marka dambe nin aad u dheer oo xoog weyn uu yimaado meesha wax walba waa uu ku dhufanaya mise waxba kama tarayso se mar qura ayaa la tuuraya gebigiisiba Frank se ugu dambeyn waa uu dilaya Frank oo dhulka ayaa uu la jaraya kadib waxa uu ku soo laabanaya gabadhii wuxuuna u sheegaya saaxiibkii inay adagtay sida bambadan loo furi lahaa Frankna waxa uu xidhanaya suuc cusub oo gaadhiga kala soo baxay tiinina waxay u xidhaysaa tayga kadib waxa uu dhaqaaqaya dhankaas iyo magaalada Budapest waxa la soo hadlaya booskii gaangiiska waxa uu ka odhanaya waxaad samaysay waa qalad mana rabo maanta kadib inaan isla sii shaqeyno markaa iska dhimayo uu ka odhanaya mise waxa uu arkaya nin kale oo gaadhigiisa ka haystay kuwa uu daba cararaya waayo hadduu gaadhiga ka fogaado waa uu qarxaya waxa uu kaxaysanaya baaskiilad meel kastana waa uu marinaya waxaynu arkaynaa inuu aad u aqaan sida baaskiilada loo wado waana uu eryanaya Valentino waa ay caawinaysaa ilaa marka u dambeysay uu ku soo laabtay gaadhigiisa uuna ka tuuro ninkii gaadhiga fuushana la hadlaya saaxiibkiisii taliyaha ahaa wuxuuna ka odhanaya ii ogow xagga uu joogo booska gaangiisku marka uu ogaado meesha uu joogo mise waxa arkay booskii oo meel kale oo beena ayaa uu isaga dhigaya inuu joogo ogaanaya Frank in dusha lagala socdo kadib gaadhiga ayaa uu iska kaxaysanaya Valentino waxay diyaarinaysaa hees waxbana kama qasna meel ayaa ay istaagayaan shidaal ayayna ku shubanayaan gabadhuna xamaamka galaya isdhahaysa markay sidaa u galistiraan 75 mitir ayaa ay gaadhay hadii ay tallaabo kala qaadana waa ay qarxaysaa kadib waxay isaga soo laabanaysaa meherada hawsheedana waa ay isaga soo dhamaysanaysaa markay gaadhiga sidaa u soo fulaan ay kaxayaan mise waxa arkay raggii wasiirka u soo diray ay isku dayeen inay eryadaan Frank se ma ogow inuu yahay darawal go'go'ay wuxuuna u wadaya gaadhiga si waali ah wuxuu wadaba gaadhigii laba taayir ama sheego qura ayaa uu ku wadaya laba gaadhina waa uu ka dhex saaraya iyaguna kama harayaan way daba socdaan xabado badanna waa ay ku furayaan ilaa uu marka dambe isku dayo inuu dilo wadadii ayuuna uga leexanaya mise gaadhigoodaba buur ayaa uu ka dulboodaya wayna qarxayaan halkaana waa ay ku dhimanayaan waa uu xanaaqaya wuxuuna la yaabay waxaan dhacaya ragganna meel kasta ay kaga soo baxayaan Valentino waxay isku dayaysaa inay dejiso dhinaca kale booskii gaangiisku wasiirka ayaa ula hadlaya waxaynu ogaanaynaa inay Valentino tahay inanta uu wasiirku dhalay qofka ay ugu hanjabayaanna waa gabadhiisa si uu warqada u saxeexo iyaduna Frank ayaa waxa uga sheekeynaysaa sidii loo soo aftuubtay saaxiibkiina markuu ogaaday in la rabo in la dilo waxa uu soo kaxeeyay gaadhiga dhankaas iyo qalkaaga halkaas ayayna isku aragnay saaxiibkana waa kii dhintay la soo hadlaya booskii gaangiiska wuxuuna u sheegay inuu tago magaalo kale wadada intay ku sii jiraan Frank waxay si aad ah isku sii baranayaan Valentino wuxuuna uga ballan qaadayaa habeenka marka la gaadho inuu badbaadinayo sidaasna wax walba ku dhameynayo wayna sii kaftamayaan markaas waqtigaas waxa la soo hadlaya booskii wuxuuna ka odhanaya khalaas uu dhamaaday mishankaagii gabadhana iska soo deji waxa laga istaagaya labada dhinac ee bridge-ka Frank waxa uu ka odhanaya deg wayna diidaysaa marka hore waxayna ka odhanaysaa haddaan dego adiga waa ay ku dilayaan ku odhanaya waxba ka baqina iska dega aniga aqaanay waxay u tagaysaa booskii waxa uu ka furaya bambadii wuxuuna ku amraya raggiisa inay xabada ku furaan Frank oo ay dilaan uu sameynaya gaadhigiiba bridge-ka ayaa uu ka tuuraya biyaha ayuuna ku dhacaya booskiina raggiisa waxa uu ka odhanaya isaga imaada si walba ha ahaatee waa uu dhimanaya hadduu gaadhiga ka soo dhex baxana waa uu qarxaya haddii uu ku dhex jirana biyaha ayaa dilaya Frank waxa uu la hadlayaa saaxiibkiisii taliyaha ahaa uu joogana waa uu sheegaya wuxuuna ka dalbanaya inuu degdeg ugu yimaado kadib waxa uu ku laabanaya gaadhigii mise waxa ku dhex jiray oxygen iyo bahal buufismaya oo kor u qaadaya gaadhiga booskii waxa uu ka haystay raggiisa wuxuuna raacay tareenka Frank isagoo gaadhiga ku dul fadhiya laga soo saaraya biyaha waayo kama dul tegi karo kale booskii wasiirka ayuu la hadlayay wuxuuna ka odhanaya ii saxiix ama gabadhaada ayaan dilaya Frankna gaadhiga ayaa uu hagaajinaya wuxuuna ka ogaanaya GPS-ka xagga uu joogo boosku waqti yar kadib waxa uu soo gaadhaya tareenka wuxuuna ku soo dulboodaya tareenka kadib waa uu soo galaya tareenka raggii joogayna mid ayaa uu dilaya dagaal culusna waa uu ka dhaxdhacaya dhammaantoodna mid ayaa uu garaacaya ilaa uu ka soo haro booskoodii oo kaliya uguna waxa uu daba socda Valentino waxaanay rabtay inay ka baxsato mise Frank ayaa ka soo gaadhaya mise waxa uu ogaanaya hadduu tallaabo kala qaaday inuu qarxayo gaadhiga ayaa uu ka fogaaday kadib waa uu isaga tegaya gaadhiga ayuuna dib u soo kaxaynaya waliba si waali ah mise tareenkiiba gaadhiga ayaa uu soo dhaxgelinaya waxaanu qabanaya booskii gaangistarada aadna waa uu garaacaya walba waa uu ka jaraya oo dhibka uu geystay marka dambe waxa uu ka qaadanaya furihii kadib isaga ayaa uu ku xidhaya bambadii gaadhigana waa uu ka tuuraya tareenka marka uu sida uga fogaadana waa uu qarxaya waanu dhimanaya Frank waxa uu helaya Valentino waqtigaas wasiirku waxa uu saxiixaya warqadihii mise taliyaha soo wacaya una sheegaya in la dilay booskii gabadhiisana la badbaadiyay kadib warqadihii ayaa uu jeexjeexaya waxaanu eriyay raggii askartuna waxay qabanayaan doomihii ay ku jireen daraagiskii aadka u badnaa kadib ugu dambeyn waxaynu arkaynaa Valentino iyo Frank iyo saaxiibkii oo kulmaya welibana isla wadaagay farxad aad u badan yaaray filimkeenu maanta halkaas ayaa uu ku egyahay waxaan rajeynaa inaad ka hesheen fadlan hayloobina tira like subscribe asxaabtadana aad la wadaagto waxaan idin leeyahay nabadeey